thus partnering with UNICEF and close coordination with Puntland Ministry of Education and Higher Education, implemented the project titled Improving Equitable Access to Quality Education Services and Learning Opportunities in a Safe and Protective Environment for Crisis-Affected Girls and Boys in Puntland. The overall objective was improving access to quality education and conducive learning environment for children, including those with disabilities, and to mitigate the impact of emergencies on education in drought-affected and hard-to-reach areas of Puntland. The project outputs included: crisis-affected children and adolescents have access to a safe and protective learning environment. Improved quality and learning outcomes for crisis-affected children and adolescents. Strengthened capacity to deliver effective and coordinated education in emergencies, preparedness and response within the education system. The project target population allocation. The project was targeting crisis or drought-affected schools children, including children with disabilities in 87 different schools in Puntland regions of Nugal, Bari, Mudug, Sanag, Karkar, Heilan, Ain, Sol, and Gardafu through complementing services. The project ensured the desired objectives were achieved, reaching total beneficiaries of 32,207 persons, including school children, CC members, and members of the community. In addition, the project contributed promotion of school sanitation and students' hygiene practices, access to safe drinking water, increased enrollment and retention of students, raised awareness on inclusive education and child protection for teachers, community education committee members, and community at large. The project enabled 70 schools to have water storage with a capacity of 8,000 liters, and 17 other schools were connected to permanent water source. Lastly, supported schools became child-friendly environment in terms of protection of the children and quality education. The following activities were carried out: CC training to increase knowledge on inclusive education and on children's rights and violence-free learning education, including schools, governance, and child protection. Go back to school campaigns undertaken in target locations to increase the enrollment and retention of the school children. Support school-based hygiene promotion awareness through child-to-child clubs. Community dialogue sessions to raise awareness on mitigation risk and all kinds of child abuse practices to enhance children access and retention in education. Supply and installation of PVC water tanks with capacity of 8,000 liters. Supply of monthly safe drinking water to target schools with given PVC water tanks. Connection of permanent water to 17 schools which are near sustainable water sources. Provision of sanitary kits to adolescent girls. Community sensitization using information, education, and communication materials with messages of COVID-19 prevention. To ensure that the project is meeting its planned objective and weigh the project progress, a quarterly joint monitoring at field level has been done by Ministry of Education and Higher Education, TAS, and UNICEF representative, and accordingly quarterly project performance review meetings were held in Garowe with the participation of regional education coordinators from the Ministry of Education, TAS, and UNICEF. So this promoted the project coordination and implementation success. Anigu magacaygu yaa Ubax Mursal Cabdi dhigata iskuulka Raja Primary and Secondary School ahna galaasigis awal maan haysan biyo nagu filan waxaan aad jirnay xaafadii si aan biyo uga doonano waan ku soo daahi jirnay balse hadda alxamdulillah biyo waa helnay biyo ku weesaysano biyo fara dhaqa biyo aan cabno iyo kuwa ugu jira suuliyaasha iyo kuwa ku waraabno dhirta
hay'adda waa mahadcelinaa iyo wasaaradda waxbarashada maadaama ay noo keeneen biyo nagu filan. barnaamijkii mashruuci waxbarashada qaybta maarta anta daamun taas ay fulinaysay iyadii UNICEF qaybtaas waxay ahayd mataqaana biyaha meelaha abaaraha ah oo iskuulada u baahan maarta waxaan ku leeyahay haama la geeyo biyo loo dhaamiyo caafimaadka iyo faydhowrka ardada CC-yada waxa weeye guddiyada waxbarashada iyagana in mataqaana la tababaro tababarkaas ay u wada shaqeeyaan maamulada dugsiyada iyo waalidiinta iyo si fiican ay isu fahmaan. barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aad u miro dhalay gobolka bari waxa meelihii loogu talagalay in la geeyo haamanka biyaha waa la geeyay biyihiina waa loo shubay. biyo gelinta waxaan u aragnaa faa'iido weyn inay noo samaysay sababtoo ah awal ciriir bay nagu ahaayeen isqool gelitaanka cabitaanka kariska faradhaqa intaba waxay nagu ahaayeen ciriir. marka waxaan u aragnaa hay'adda tadaamun inay noo keentay faa'iido weyn oo aanu ka helay biyahaas. annaguna aad baanu ugu faraxsanahay haddaanu waalidiintiinahay ila guddiga waalidiintii buu ka mid yahay. marka aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda tadaamun UNICEF wasaaradda waxbarashada oo aan la'aanteed waxba noo imaadeen oo iyadu de noo qareento noo raadisa in wax naloo sameeyo. runtiina annaga meelihii noogu baahida badnaa ayay wax ka qabatay hay'addu. waxyaalaha kaleeto ay xoogga saaraya wax ka mid ah biyaha mashruucaani oo runtii annaga gobol ahaan 9 iskuul ayuu la shaqaynayay 5 ka mid ah wuxuu geeyay haamihii waaweynaa waliba iskuuladii ugu nugulaa oo ugu tabarta yaraa ka bacdina waxay sameeyeen water tracking biyo ay geeyeen oo haami ugu shubeen. runtii arrintaas waxay keentay in iskuulka noloshiisa wax iska bedelaan nadaafadda iskuulka wax iska bedesho ardada waxay ku tababareen hygiene personka waxay ku tababareen qof ahaan in qofku uu nadaafadiisa kor u qaado. runtii mashruucan waa mashruuc waqti gaaban laakiin wax badan ayuu dugsiyadii uu ka shaqaynayay oo faa'iido ayuu kaga tegay. magacaygu ah maxamed aadan faarax waxaan wax ka bartaa dugsiga hoose dhexe ee caad saaran. hay'adda noo keentay biyaha iyo haanta aad baa ugu mahadcelinayaa UNICEF iyo wasaaradda waxbarashada. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي ولا أيوة ولا waxaan guddiga waalidiinta iskuulka Dar Raxma waxaan wadnaa olole ama wacyigelin baan wadnaa haddii ay jiraan caruurta yaryar inta waxbarashada heerka inta gaari karta in la geeyo waxbarashada ololaheegu saas ku saabsan yahay ma jiraan waa dhigtaan waa mahadsantihiin insha Allah saas baan kula soo socodsiinayna idinku boorinayna waana mahadsan. The main challenges during the project implementation were drought impact that resulted the movement or displacement of villagers migrating from one place to another due to water and pasture. COVID-19 restrictions. TAS appreciates the collaboration and support of Portland Ministry of Education and Higher Education, UNICEF, and the target communities in different Portland regions towards the success of the project implementation.